بسم الله الرحمن الرحيم. soo dhawaada walaalayaal, soo dhawaada muxuu ahaa chapter 4keenii day to day operationka qaybtiisii labaad. anaga laba kala qaybinay u dheeraaday chapterku. waxay noo joogtay inagoo discount u sameynayna muxuu ahaa macmiilkii. imankana waxaynu eegi doonaa bal sida muxuu ahaa macmiilkaaga looga xadido deynta uu qaadanayo, sidaad limit ugu sameyn lahayd aynu qaadanaynaa. waxaad tegi doontaa markaa muxuu ahaa customers markaad tagto oran doontaa muxuu create invoice. create invoice hagan ka siin kartaa control plus ayuu taaban kartaa, oo hagan baad ka taaban kartaa create invoice. intuba waa isku meel bay ku keenayaan. marka si aad markaa muxuu ahaa aad qofkii deynta kaa qaadanaya, waa muhiim qofkan deynta kaa qaadanaya inuu ku diiwaan gashanaado, xog aad ka hayso informationkiisii, telephone numberkiisii, magaciisii, aduu xog kugu filan aad ka hayso. deedna markaa waxaad odhan muxuu ahaa add new markaad tiraahdo magaciisii baad qori, markaa magaca ugu muhiimsan. magaca markaad qorto inta kale waad buuxin kartaa waxaad u baahan tahay. wixii aad uga baahan tahay intan kale waad gashan kartaa. marka anagu markaan magacii gashano, magacii noo muhiima, waxaynu tegi doonaa pointka labaad halka ku qoran muxuu ahaa payment setting. payment setting markaad tagto waxaad ku dhufan doontaa xagga credit limit ku qoranta. credit limit ku qorantahay ayaad ku dhufan. deynta uu qaadanaya inaanay intaa ka badan baad ku qori doontaa, intaanad rabto inaanay ka badanin deyntaas. tusaale marka qofka waxaynu uga dhigi doonaa muxuu ahaa 300 inaanay deyntiisu ka badanin. Cabdiraxmaan Cali duu invoice qaadanayo inaanay deyntiisu 300 ka badan wuxuu qaadanaya alaabta muxuu ahaa inaga iibsanayo. hadduu deyn ku qaadanaya 300 ka badan, deedna inta geliso okay baad siinaynaa. markaan siino waan tijaabinaynaa. marka Cabdiraxmaan credit limitkiisu waa 300 kama badsan karo. farana alaab invoice aan deymina alaab aan deyminaynaa 50 wax badaaba soo qabato quantity iibsanaya xabad buu qaadanaya. xabadii waa 900. deyntiisuna maxaan nidhi inaan ka badanin 300, waa 3 jeer laab. bal markaan isnidhaahno ka iibiyo safe and new brand isnidhaahno, marka waxaan odhanayaa muxuu ahaa way xadidan tahay deyntu qaadanaya Cabdiraxmaan 300 bay ku xadidan tahay. marka waxaan u qaadanayaana waxa weeyaan waa 900. marka adiga option u leh inaad yes continue tiraahdo, jabiso xeerkii aad dhigatay oo tax furayso, iyo inaad no tiraahdo. marka labada option ba adiga leh. waxaynu muxuu ahaa pointkeena kaa ku xigaa waa simple isagu sida loo sameeyo invoice-ku. pointkeena xagga kaa ku xigaa wuxuu noqon doonaa sidaad muxuu alaab u dalban lahayd. alaab sidaad u dalban lahayd ayaad muxuu ahaa samaynaysaa. marka laba option baa loo sameeyaa alaab dalbashada. muxuu ahaa mar aad biil muxuu ahaa aad deyn ku soo qaadanayso, oo badanaa muxuu ahaa de kombaniyada marka alaabtu timaado alaabta waa give and take weeyaan, waa muxuu ahaa waa la isweydaarsadaa lacagta. laakiin markaad kombani weyn tahay alaabta markay kugu timaado umad lacagta shubaysa, waayo haddaad lacagta sii shubto hadhow waxyaabo badan oo wax kasoo noqon kara muxuu ahaa in alaabtii bar la soo waayo oo saasa. marka waxaan samayn doonaa muxuu ahaa iyadoo waxaan isku dayi doonaa aynu biil ku qaadanayno deyn alaabta ku qaadanayno. waxaan odhan doonaa markaa vendor tagi receive items and enter bills ayaan ku dhufan doonaa. markaan ku dhufano waxaad tegi doontaa xaggan muxuu ahaa kambanigii aad doonaysay inaad wax ka deynsato ayaad raadin. Samsung kaasaynu ka deynsanayna tusaale ahaan, kaasaynu ka deynsanayna. xaggan aynu alaabihii aynu doonayna inaynu soo iibsano aynu soo gelin doonaa kuwaa doonto. haddii alaabtay aad hore u haysay alaab ka duwan oo item cusub suuqa soo galay aad doonaysay inaad soo iibsatana add new baad oranaysayo sidaynu hore usoo aragnay ayaad usoo diiwaan gelinaysaa. inventory part baad ka dhigi, magaciisii baad soo qori. mid baan example ku bixin doonaa. waxaynu ku bixin doonaa iPhone 14 Pro Max ayaynu tusaale ku bixin doonaa. marka no specifications gelinaynaa 1 terabyte weyn madaxiisu. waxa weeyaan waa blue labkiisu
waxa weeyaan waa 8 GB oo RAM ah. intaasuu leeyahay. intaa markaynu gelino magaciisii hoos baynu soo degi, qiimihii shirkaddu inaga siinaysa baynu gelin doonaa marka. shirkadda waxay kaga soo iibsanaa 950 tusaale ahaan. hagana qiimihaynu gelin doonaa 1300 badhe, qiimo hoose ugu dhufano. intaa markaad geliso okay baad siinaysaa marka. income account-keenu ilawnay cafwan, income account-kuna waa sales binoo ahaa horeynu soo aragnay intaasi ma garan waayeysaan. deedna okay baynu siinaynaa marka. okay markaan siino xaggana gelinaynaa alaab intaynu doonayno inaynu dalbano marka. quantity-gaasaynu gelin doonaa 20 baynu dalbanaynaa tusaale ahaan. markaasaynu soo degi doonaa. alaabta kale aynu dalbanayna aynu hubin doonaa. P50 aynu soo kordhisanaynaa. waxaa hore inoogu sii yaalay markaan doonayna dhagna halkaa yare calaamadaasaan ku dhufanaynaa chartka yar. 35 xabbaynu haysanaa. 35 xabbo waxaynu kusoo darsan doonaa muxuu ahaa 15 mid sida 50 mid noogu yaalaan. 15 mid waxaa kaloo dalbanaynaa muxuu ahaa S21 Ultra. waxay noo sii yaalay isagana mar walba xaggaas hadaad u baahato kulmada 56 isagana muxuu ahaa noo dalab muxuu ahaa 14 mid 17 mid noogu noqdaan and so on. markaas aad u buuxinaysaa muxuu ahaa meesha. markaad u buuxiso waa bill wey maaha muxuu ahaa waa dayn baad alaabtan ku qaadanaysaa, weli lacagtii maad bixin. safe and close baad markaa tiri. saasay ku dhamaatay markaa muxuu ahaa alaabtii waad la wareegtay. dayn muxuu ahaa ama way ku imanaysaa markaa dayn baad ku qaadatay adoo alaabta almuhim. pointka labaad ee noogu xigaya wuxuu noqon doonaa sidaynu muxuu ahaa haddaba iskaga bixinaa muxuu ahaa dayntan aynu qaadanay sidaynu u bixinaa. markaa waxaynu odhan doonaa muxuu ahaa vendorska tegi doonaa sidaynu u bixino, ama aynu u wada bixino lacagtii laynagu lahaa ama aynu bar u bixino. deedna waxaynu tegi doonaa vendorka muxuu ahaa pay bills-ka tegi doonaa marka. pay bills-kaas tegi doonaa. pay bills-kan ku dhufanay waynu muxuu ahaa waxaynu odhanayaa options xagga dambe nooga soo socday oo account-a aynu odhanayaa si aad markaa lacagta waxay inaad account samayso waynu dhex gelin doonaa wax weyn ma yes baynu odhanaynaa. account baynu samayn doonaa. account-ka markaan samayno waa bank. waxaan odhan doonaa muxuu ahaa Somaliland bank. Somaliland bank baan nidhi. intan kale waxaa doontaad ku buuxin. lacag baynu gashanaynaa marka. lacag inoo taalo account-kii halkaad ku dhufan doontaa oo enter opening balance. deedna xaggan ku qori doonaa marka. waxaynu gashanaynaa halkaa 200,000 oo dollar baynu gashan doonaa. 200,000 oo dollar. deedna alaabta lacagtaas aynu dhiganaynaa. statement ending date. okay. muxuu ahaa save and close. si aad daynta u bixiso waa in muxuu ahaa waxaa laynagu lahaa 16,700 dollar ayaa laynagu lahaa. waa tan dayntii inagu lahaa. marka aan kusoo celiyo markaasaan kusoo celiyo option kale naga dhex galay. si aad markaa pay bills-ka u samayso biilka u bixiso waxaad tegi doontaa vendor. markuu fato pay bill badan pay bill markaad tidhaahdo biilashii lagu lahaa oo dhan buu halkan kusoo geli markaa imka xabad kale nagu leeyahay hadday fara badan yihiin xagan u tixi doonaa. deedna markaas saa kugu soo dhigo tigtaad saari. tigta markaad saarto wuxuu muxuu ahaa waxaa loogu leeyahay muxuu ahaa pay selected bill badan. pay selected bill maxaynu bixinay 16,700 dollar. 16,700 dollar wuxuu ka dhacay markaa payment-kii Somaliland bank baa laga gooyay. deedna markaa waxaad odhan doontaa print check waad check garayn doontaa. waad muxuu ahaa oo print garayn kartaa inaad lacagtii bixisay hadduu printer ku yaallo. haddii kalena muxuu ahaa lacagtaas ka bax xaggaad ku ogaan kartaa markaa chart of account. account-kii 200,000 baan dhignay soo ma Somaliland bank 200,000 maxaa ka go'ay intii ka go'day 160,000 iyo 700 dollar bay noo haray. alaabtii saasaynu ku wareegnay marka. alaabtii nagaas kale items and services-ka ku dhufano alaabtii oo dhan way noo wada timiday. kuwan mid walba kaas 7 inooga yaala kaas muxuu ahaa 20 inooga yaala kaas 50 way noo wada timiday alaabtii. saasaa markaa muxuu alaabta dalbanayso
iyo muxuu ahaa markaad dalbanayso markaad lacagta bixinayso aad u diiwaangelinaysaa marka halkaasina waa halkaa muxuu ahaa kharashaadkii baynu markaa geli doonaa imikana expenseskii muxuu ahaa kharashaadkii ku baxayay muxuu ahaa ama meherada ku baxayay ee noqdo ama shakhsiyaadka ugu baxayay ama shaqaalaha ku baxayay noqoto muxuu ahaa mushaharkoodii ha noqoto internetkii meherada ha noqoto kiradii ha noqoto biyihii ha noqoto everything waa expenses wey kharashaadkii muxuu ahaa lumayay markaas kharashaadka loo diiwaangeliyay imikana eegi doonaa waxaad ku dhufan doontaa markaa اللهم صل على محمد waxaad tegi doontaa waxaad tegi doontaa banking menu waxaana tegi banking deedna waxaad oran doontaa right check badan right check markaad tiraahdo wuxuu keeni windowgan markuuna keeno si aynu u gelino markaa muxuu ahaa kharashaadkii aynu u baahnay inay baxaan hagan accountkii ay ka baxayeen baynu gelinaa waayo waa expenses hagan markaa maxaa koowaadaan bixinana waxaan bixinana muxuu ahaa biilkii muxuu ahaa xaafadda muxuu ahaa markaa muxuu ahaa waxaan odhan doonaa so muxuu ahaa markaa expenses ka dhan inoo soo dhigi doonaa another home adaa gashan kara markaa account bayn samaysan karnaa home expense baan odhan doonaa marka ama muxuu ahaa biilka guriga deedna biilka guriga ma jiro baynu odhan waana sida ku samayno sida marka ku samayno expense baynoo yahay biilka guriga muxuu inoo noqonayaa safe and close biilka guriga muxuu noqonayaa 300 markaad tiraahdo halkan waxaad geli doontaa muxuu ahaa waxaad oran doontaa muxuu ahaa kharashka ama muxuu ahaa shaqaalaha mushaharka shaqaalaha tiraahdo in odhan setup ku samee setup garayni expense baad mar walba hubsan doontaa inuu yahay deedna okay continue odhan markaas safe and close markaad tiraahdo waxaad gelin doontaa marka iyagoo total haddaad doonto gashan kartaa haddaad doonto calaa qof baad u samayn kartaa maxamed cali yuusuf oo muxuu ahaa employegaaga intay yihiin deedna muxuu ahaa internet bill baad odhan kartaaba internet bill internetkii ku baxayaa bishiiba lagu soo doonayba saasaad wadaysaa marka internet bill markaad tiraahdo internetkii biilka waa $25 baa kugu xidhan sidaa ama magacii shirkadaad gelinaysaa adaa muxuu ahaa ikhtiyaar leh marka accountku ka go-ayaa waa kii account ka go-ayaa waa kaa waa Somaliland inoo dooran yahay $1,700 ayaa muxuu ahaa ayaa noo qoran markaa saas idhaahdo intaa markaad doonayso markaad buuxiso eed muxuu ahaa wada dhamaystirto wixii aad doonaysa inaad muxuu ahaa wixii kharashay doonaysa inaad bixiso safe and close badanaysaa marka automatic waa go-ay waa kharash tegay marka wax meel kaaga soo noqonaya iyo maaha muxuu ahaa waa isticmaalkii waxaad isticmaashay chapterkaasina intaasuu inoogu dhan yahay chapterkeena 5 baynu gudbi doonaa inaad fahanteen baan u malaynayaa wixii idinku adkaado waxaad igu soo qori doontaan commentka waxaan isku dayi doonaa in dib ugu soo celiyo dad nagu cusub tahay nagu soo biir channelka subscribe noo saar haddii kalena like comment ka soo bixi aad mahadsantihiin